markii la soo diray ee la dhahay qum fa andir wuxuu bilaabay nabiga calayhi salaatu wasalaam inuu amarka ilaahay subxaanahu wa tacaala amray ou ajiibo maraaxisha marka dacwadaas mundu bacathahu allahu tacaala ilaa wafaati الnabiy sala allahu calayhi wasalam fii 4 maraaxil 4 marxalo ayay ahaatay markaan soo koobno almarxalaة اlأuulى kaanat اdacwa siran waاstamarat 3 sanawaat dacwadii sir ayay ahaata marxalada ugu horeyso waxayna daa'imtay 3 sano nabigana calayhi الsalaatu wasalaam muusan u yeeri jirin ilaa man kaanat shiddatuhu qawiyan cindah aw macrifatan qadiima qof kalsoonidiisa agtiisa ay ku adag tahay ama qof macrifo hore oo u leeyahay fakaana fii hawaa'ili haadihi almarxala marxaladaas marka waxaa soo islaamay in kooban ay ugu horeyso khadiija bintu khuwaylid cali bin abi daalib zayd bin xaaris abu bakr cuثmaan ibn cafaan zubayr ibn cawaam cabdiraxmaan bin cawf sacd bin abi waqaas culamada qaarna waxay ku daraan alarqam ibn alarqam sheekhii weynaay kaanat idacwatu safar sidaas ayay ku socotay 3 sano sidaas ayay waxay ku aheeday si siriye ah oonan qof nabiga calayhi salaatu wasalaam ounan kalsooni uusan ku qabin ousan u sheegi jirin nabiga calayhi salaatu wasalaam saxaabadii markii xoogaa 30 ay gaareen ayuu nabiga calayhi salaatu wasalaam saxaabiga hadda aan sheegaynay abaa cabdullahina lagu kunyeeyo ee lagu magacaabo alarqam ibnu alarqam gurigiisa ayuu wuxuu uga suubiyey majlis ay ku kulmaan nabigana oo ugu taga calayhi salaatu wasalaam marxalada labaad marka kaanat iddacwatu jahran wa bilisaani faqad dacwadii waxay isku bedeshay si jahar ah laakiin lisaanka dagaal muusan ahayn wastamarat ila alhijra intaas waxayna ku socotay ilaa hijrada laga gaaro nabiga calayhi salaatu wasalaam markaasaa waxaa ku soo degtay fasdac bimaa tu'mar wa acrid can ilmushrikiin nabiga wuxuu go-aansaday calayhi salaatu wasalaam amarkaas ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu fuliyo nabiga calayhi salaatu wasalaam fasaciida cala safa jabalkii safa la dhahay ayuu kora nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuuna isugu wacay dadkii meeshii joogay xata ijtamacuu intay uga kulmaan maalinkaas waxaa la yidhi qofuma maysan baaqanin ilaa qoftii baaqatana waxay soo dirtay rasuul amba qof khabarkaas uga keenan oo maanta uu leeyahay nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam nabiga markuu meeshii ou soo fuulay ee dadkiina ay isugu yimideen mausan dheeraynin aqwaashiisa wuxuu ku soo kooban nabiga calayhi salaatu wasalaam ra'aytum low akhbartukum ana khaylan bilwaadi turiidu an tuqiira calaykum akuntum musadiqiin bal ii sheega oo i khabra haddaan idiin khabro o idiin sheego fardo waadigaas ku sugan doonaysana inay idinsoo weerarto warkaas aa inii sheega ma rumaysanaysiin mase waa beensanaysiin waxay ku jawaabeen duqowdii ay sheegeen maa jarnaa calayka kadiban wax been hore kugumana aqaanin nabiga calayhi salaatu wasalaam xaaladu saas hadday tahay wuxuu ku yidhi fainii nadiirun lakum bayna yadii cadaabin shadiid hadda marka idin digaayaan ahay ilaahay agtiisana cadaab idinkaaga digaayo waxaa istaagay abulahab ee ku yidhi tabban laka alihaada jamactana ilaahayna waa tuu radiyey ikhwaanii fi llaahi marxaladaas marka ilaa hijriga laga gaaro nabiga calayhi salaatu wasalaam sidaas ayay ku socotay jaharkaas markii arrinkan sidaan ku caddaaday nabiga iyo saxaabadiisa waa la dhibay dhib aada u daranaa la dhibay waxayna nabiga uu go-aansaday calayhi salaatu wasalaam saxaabadiisa oo u sheegay ouna ugu khabray in ardadaas ardu xabasho ah inay iska aadaan wuxuuna yidhi wa bihaa ardu sidqin ardadaas ayaana ah ardadaas runta ah waxaana ku sugan melig waxaana rajaynaa inaana agtiisa laydinku dulmi doonin
dadka ugu horeeya xudayfa ibnu alyamaan cusmaan ibnu cafaan iyo zawjadiisa oo aheeday gabadhii nabigeena calayhi salaatu wasalaam ruqaya iyo saxaabo waxaa lagu sheegaa oo culammada siirta ay sheegaan 82 saxaabo inay meeshaas tageen markay tabeen reer quraysh waxay suubiyeen marka waxay ka daba tireen hadiyo iyo laba kamida reer quraysh markay u tageen waa tii najaashi hadiyada ay u gooyeen la wacay saxaabadii nabigeena ridwaanullaahi calayhim waxay ku go'aansadeen inay meligaas qaabilaan jacfar bin abi taalibna ou hadalka asaga u qaato una furo markuu u tagay jacfar bin abi taalib warkiina ou furay mausan ku dheereenin jacfar wuxuu yidhi ayuha almelik kunnaa qowman ahla jaahiliya nacbudu alasnaam wa na'kulu almeyta wa nusiiru aljiwaar wa na'ti alfawaaxish ويأكل القوي منا الضعيف حالadaas markaan ku sugannahay xaaladaas annaga ku sugan oo ayaa ilaahay wuxuu noo soo diray rasuul dhaxdeena ayuu ka soo diray nacrifu nasabah wa sidqah wa amaamah wa afafah kaasoo garanayno nasabkiisa amaanadiisa runtiisa iyo cafafnimadiisa ونوع إلهي سبحانه وتعالى هو نوع إن إلهي سبحانه وتعالى عابدنا أصنامتنا أن كتغنو مركي أي لهين سداس أو كيري ويقوستين قصة وآدي وسيديرات وحن ربائنا نصوق قابيو حالة اللباد أما مرحلة الدعوة دي سداس أي جهر كو آياتي لكن ميسن رعسانين وحدا قاله المرحلة الثالثة كانت الدعوة جهرا مع قتال المعتدين والبادئين بالقتال دعوتي واستمرت إلى صلح الحديبية دعوتي مرحلة السدحات وحي سوبدي أي أهدي إن للجهر قفت الدقال كسوقاته أبصو قردر صدتني لا الدقالو وحين السعطي دعوة السلاس أي أهد إلى صلح الحديبية مرحلة أفراد أودا بيسي كانت الدعوة جهرا مع قتال من وقف في سبيل الدعوة أو امتنع عن الدخول في الإسلام دعوة حالة أفراد وحين نغطي متجهرية إيضا ولد دقالنا أو لجرة قف الله يقف استاكتو وضد دعوة نبي أول عليه الصلاة والسلام للا دقاله إيا الروح كرهب تومو إنو سو إسلامه وهذه المرحلة هي التي استقر بها أمر الشريعة. هذا وبالله التوفيق والسلام عليكم.